saaxiibada xiiseeya muuqaaladeena meel kastoo aad dacallada adduunyada ka joogtaan waxaan hawada idinka leeyahay waqti kasta ay ku tahay ha ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado. waxaan videogan aan kaga hadlayaa familka ay ka dhalatay Ayuuni, khaasatan walaalkeed oo si aad ah kaga cadhooday muuqaal lagu faafiyey social media ka oo laga duubay Ayuuni oo caanka ah social media khaasatan TikTok. haddaba familka ay ka dhalatay Ayuuni ayaa khilaaf aad iyo aad u weyn u soo dhex galay, waxaana iminka sida aan ka soo xiganay mid ka mid ah asxaabta ku dhow familkaas ay inoo sheegeen in iminka la wado ama ay hubinayaan familka in videogaasi uu yahay mid sax ah oo Ayuuni ay tahay qofka videogaasi laga duubay. haddaba familkii ayaa iminka isku dhex maqan oo sheekada si aad iyo aad ay xamaasad u leedahay ama u qasan tahay daawadayaal. haddaba Ayuuni ayaa familkeeda waxa ay ku eedeeyeen in ay qaab xun ugu hadlaysay taleefankaas ama video call-ka xilliga ay ku hadlaysay una dhaqmaysay qaab dhaqan xun. wiilka ka duubay videogaas ayaa la sheegay inuu ka mid yahay wiilasha Soomaaliyeed ee ugu caansan aaladda TikTok sida aadka u isticmaala. aan soo gelin aad ku daawateena insha Allah qofka uu yahay waan idin soo gudbin doonaa sida ugu macquulsan uguna caqli galsan ayaan idin kula wadaagi doonaa, balse waxaan hadda idin sheegayaa inuu yahay mid kamid ah dadka ugu caansan ee isticmaala aaladda TikTok ee Ayuuni saaxiibo ay ka yihiin. haddaba videogaasi Ayuuni laga duubay ayaa waxaa iskula wadaagayay dhammaan social media khaasatan Facebook oo qof walbaba Facebook isticmaala videogaasi loo sii gudbinayay. haddaba qoyska ay ka dhalatay Ayuuni ayaa waxa ay ka codsadeen guud ahaan dadka haya ama degsaday videogaasi ee ku sii faafinaya social media intiisa kale in ay muuqaalkaasi delete iska dhahaan kana bixiyaan dhammaan meel walba ay ku sii faafiyeen. waxayna ka codsadeen in gabadhaasi magaceeda aysan bulshada dhexdeeda ku dilin, videogaasina ay ka bixiyaan dhammaan social media ay dadka ugu sii faafiyeen. haddaba Ayuuni ayaa si aad iyo aad u aaminsaneed wiilkaasi ay kula hadlaysay TikTok kula hadlaysay video call-ka, mana aysan ka filayn in videogan uu ka duuban doono xilliga ay la hadlaysay. Ayuuni ayaa sida aad wada daawateen wax walba uu wiilkaasi ka codsaday sameynaysay sida videoga aad ka daawateen. midda kalena videoga inta uusan soo gelin ama uu ku faafin social media waxa uu sameeyey codka ayuu ka bixiyey oo cod la-aan ayuu videoga kusoo geliyey social media si aan isaga codkiisa loo aqoonsan. haddaba ugu dambeyntii waxaan qof walba oo videogani daawada aan ka codsanaynaa inuu saaxiibadiisa ama meelaha social media intiisa kale uu kusii faafiyo. qof walba oo videogan daawadana waxaan u sheegaynaa in ay dhageystaan codsiga ka imaanaya familka ay ka dhalatay Ayuuni oo ka codsaday in muuqaalkaasi laga bixiyo dhammaan social media. waa naga codsi inaad dhageysataan baaqaas kaga imaanaya waalidiinta Soomaaliyeed ee ka dhalatay Ayuuni, baaqaasi oo aad videogaasi dhaqanka xun aad ka bixin doontaan social media meel walba aad kula sii wadaagteen. haddaba ugu dambeyntii waxaan u digayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee isticmaala social media kuna hadla video call-ka ay ka soo wacaan wiilasha Soomaaliyeed iyo weliba dadka kale ee ajnabiga ah. waxaan dhammaantiin idinkaga digaynaa in aad ka digtoonaataan dhibaatooyin laga yaabo in ay ka dhashaan video call-kaasi laidinkula sheekeysanayo. haddii video call aad ku hadlaysana iska ilaali in aad u dhaqanto qaab ka baxsan dhaqanka Soomaaliyeed iyo weliba diinta Islaamka, taa oo laga yaabo in uu ka faa'iideysto qofka kula hadlayo kadibna sumcadaada uu ku dheero oo social media iyo meel walba uu ku faafiyo muuqaalkii uu ka duubay. ugu dambeyntiina muuqaalkeeni halkaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabaynaynaa. waxaana
naga ogeysiis ah in aad codsiga familkaasi idinkaga imaanaya aad u hoggaansantaan oo muuqaalka Ayuuni aad ka dirsan dhammaan social media muuqaalkeenina intaas ayuu ku egyahay intaan dib u kulmi doono video kan ka xiiso badan waxaan daawadayaasha qiimaha leh idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo fadlan videogan like inoo dheh sidoo kalena comment ka soo bixi saaxiibadaadana la sii wadaag muuqaalkan nabadgelyo